oo dad maaba black mail lagu haystaa oo balbad la baraa oo la gadgadaa عقل قرآن كم حكوا قرآن هالكا حكوا قرآن قلبي عقل مقدوا wax ma arko mugdوا مش عشان إذا مقدم اوكيالا حيرو اوكيالا أنا ما أركي والله سكرين شوت كقاعدة جامعة هذا أركين اوكيالا حيرو ميبي سوق هذا قال موجودة سكرين شوت وحالة ده هاي السلام عليكم هبو نبض ياسمين لده هاي وحينو geysatay dhibaato aad u badan hadda ka hor aniga iyo gabadha kale ayay baasaboor naga qarisay gurigeeda aynu ku xayirnayn bil dhan xataa si aynu nahay isma ogeyn marka aynu dhinac dirac aan xidhay ayaa qaadatay oo ayay ula tagtay si xiroole naagta iyo ninka muhaa malay maqlaa jaamaco maaragtay shaashada madowga taa maaragtay madowga ka talaka ku soo diray fiiri qaalin ku dhaafay waa jaakiro saay wallahi ina jaakirin jaamaco dir waa kaasa weydii oo shaashada madowga maya waxay ku shaqaysaa gabadha masaakiinta ah meel kasta oo oon xataa u guurne maya suushi hal waxaa weydiinaya hadda ma fahantiin horta hadalka anaa idin dhameeyay waa fahma abaaye okay gabdhahan hadda ayaga waxba ogeyn maa lasoo afduubana aan ku dhameeya qalbi tusaalaan ku tusayaa adiga maanta qaaliladan aan ku soo raaco qof caana tiimkaanaan isbaranay saacaba furanaa laygu soo dhaweynaya xabiibati albo wallaahi shuushi cadu maasha allah abaay maasha allah gabar qurux badnaata kaale qalbi waa ku martaqaadayna waa lay martaqaadaya biyaa dhag la iigu siinaya jacayl warkuma ku dhacay adiga iyo kala ballanqana lagaa duubaya gabar soomaaliya ayadoo kala ballanqan laga duubo waa garanaysaa soo maahan horta tiim waa sidaa tiim loo dhibaatay kadibna fideoyaal inta laga duubo lagu rikaatay liilanaya balooda kaale la isticmaalayo hebel soo qanci iyo lacag ka qaadanayna iyo adduunka la dhaxgeli saas horta beerta lagu geliya tiimka kale waa sida gabadhan hadda qoraalka soo qorto kala ku dhacday iyagoo cusub ay meesha imaadeen way isbarteen walaalnimo si sharaf leh lagu soo dhaweeyay kadibna maaragtay baasaboorradii laga xareystay caadi la iskala dhigay balwada la dhex dabaashiyay laakiin waa dad isqabto oo dhibaato kale aysan ku dhicinin baasaboorro kaliya gabadhan laga qaatay ma fahanti shirqoolkii lala dabacsanaa ayada iyo gabadha kaleba إلهي سبحانه وتعالى كشربعي لأنه دد أتيشن كود سوجي دي آية ما يعرف أنت تيم ولا سيدا قبلها المرين أحمدية الله قرأ أنت صاحب لا نغضو وذهب وضل حاته ودروغ الله سيو نرش اللي قردو في ديال قدو تاريكات الله قصد دليل من هاد كريسيد إذ الله عليه إذا هاد قبلها سبحان تركي يقول كي كان ليزي أفكي ذا وحي كشيتي سريا ذا ناكتل ورد ناكتل دا يسوي كده دايت سعودية ورد ساقع إني مرين أحمدية التليفون فقول أنت أقول سائلين مين كان كان عينين كان يا لا ما كان مركب قفة فيديو على قطي قبل أدو سناك ما هي ستا سناك فريش ميرتا ميست أوكي سناك كان كوجو صدر لو فيديو شو أنا فلو صدر أنا يصدر بلا أركي سنابا استعمالها ولا أدري كنت وايد الحمد لله نيروبي سايق في عنان كجوجنا إلى سهل نقول فوق أنا بإذن أنا إنا أنا الكاك قاتو نيروبي ماشي أنا ولا ولي ما تسوي نيروبي قفك تشوف شو وجهك بدالة ما تقانا فرت لمبر 1 قفك إنه إلهي كفرين لمبر 2 qofka inuu iimaan leeyahay sareen wardada naagta la gubay waa la ayaga dhexdooda is gubay intaas dagaaleen dagaalkii kiiska ka bilowdo walaal waa naagta Maryan lahayd guriga gal ee ninka qanci waa la gubay ayada la gubay aakhirkii dambe wajiga laga gubay bismillaah rahmaan rahiim harka abaay sheekadan Maryan Axmedey hadda soo baxday muujada qaaliye maba ahanba wax hadda iyo mar u dhow dhacay waa wax sanad iyo samti koor soo socday qisa ku soo socday gabadha no bala adigu muddo sanad iyo adigu la qiyaastay 2 sano markay ugu badanta sanad iyo bar ilaa 2 sano u dhaxaysa mi faanta wax maanta bilowmo maba ahan barikaatada gabadhan lagu haystay iyo dhibaatada loo soo geystay taadiga wax maanta soo bilowmo maba ahan naanigu silsilada duni kala aan dhex galay waxaan kala garan waayay waxa laga hadlayaa inay Soomaaliyihiin
inay ajnabi yihiin inay gaala yihiin inay muslim yihiin aniga bis weydiiyaba wardada maxay tahay laga dabagee ma fanaanad baa maxay tahay macaan baa wardada fanaanada ma wardadan waa isaaq waxayna kamid tahay naagii mar sugan intusi ayadoo xabad xashiisha gacanta ku haysata waa ka bismillah muha iyo yaasmiinta iyo sheeka lagu hayo dadka muha boqortooy ninka la leeyahay yaasmiinta iyo waa tiimka la qaraabanay ka carar qaalada meesha dhiiqa lagu dhiiqa ma wax reality laga أنا ما كان عرضها محن سمي من ذكرت أنا أو فرلا إلى كذا قال مقول أنا حبض لي يقول فكرة ما هني ها meesha Nairobi ala qof walba sharci ku jooga meesha ma aniga naag oo caan oo Nairobi waxaan maleynaa intaan joogto ama qof nin caan oo Nairobi intaan joogo ma jirto waligeena sharta ma ark ilaahina ma tus koode qof ahlu salaadeeda asal alxamdulillah sharta la alxamdulillah أنا حتى ولا نيروبي long time أنتم بس قالنا حتى ما شاء الله واجي أو موجود قالنا قاعد حاجة كقاعد فنان ماذا أنا فنان بروح نقول واي ما أنا فنان جل وأكا لا ما قالنا نبيت واي دلوقتي ما لها أنا ببطاس aniga marka dadka marka hadasho ma aha waxa soo qoraya qaaladan yaa ka balwad badan beerka ku bararo oo ilaahay ku cadaab oo cadaabta أنا ما بقول لك وعنا أنا ما بقول لك كلا أصحاب سامع لي اسمه لا قف أسوق ملاحظة كينيا ويا تعاون meeshan shuushu cabdi qolkan dhexdiisa jaamac isagoo anagoo saarno barnaamijkan ka hadlayna intay igu soo qornaagta shuushu cabdi liiraa video baan ka hayaa haddaan nimankaa ka hari weysa ka hadlaysa haddaana ku soo dhig walaa hadday soo dhigan ku yiri waa 5 daqiiqo isa kugu qaadani bal qadiyana taagan anigoo tiktok jooga hoos siilka xabada shirkada la iga dhuftaa Rio xabada shirkada la igu soo dhuftay لا أوركي مدرا ماشي أنا ممكن ودوني كلام ودوني كلا دكتور ويسكح لا تيتو ما يتوني تيتو ودوني كلام أنا لا مدري دي شيء يا قفان نعبة هاي أنا دونك وقول نعبة مجرو قفان قوني صاحب ولا أنا مجرو قفان عدو هاي مجرو قف عدوي أنا مجرو أنا رنتي دي شيء أنا سوشيال ميديا وان كهلا أنا ما بشر أنا كهلا كيزسك حساسي عن كهلا ولا لو وسيلة المجعاب يا شيادين وشقيسة مجالات المقدسة جت شو عدارة بقف كنا عايزها وصوب الدقيقة شو ملا كوشة هو إذا قرأت أنا ما قعدت مقطع أنا كيس أدي لي كان كيس كلي كان أنا عدينتي سوى توقع ليا قف على لي قف كي حناقي يسوي وطالع تين كاس لكن أنا لا دوا شو دت كنا عبنا جيران لقيها أنا ولا شيء أنا كويدينا أنا عارف شعيب وسوقين أنا بيتعلم كل قف هذا مرين أنت قدم بس شيء كذا مرين إثيوبيا جوكتا wiilkii wixii caadi waa sama xagga seef waa muhiim أبا يا حد مرين هذا ده وقف عافمات قبل ما متمسكية نقف عافمات قبل ما هو نقف دراج أدكشن لقدي مرين وقف نرش اللي قبل بدي مرين ما قف أبا حر ما مسكني سعافمات والله هرت أبا شل إسبيع أنت تجي جوارا والله بلا تلا أقاني حيو تري جوار عانه أنا اللي وعسوم أنقرنا واتها عند عنتم يا قف برجل وعسوم مرك أبارا عزومات واجرتا إلين عسومات واجرتا ولا العسومات واجرتا كراكي هبل أنت ما عمرك اللي وعسومة بارك عنون يا تقدر أنا وحسب وجهي أدون كده هرتوا يكده ما يقبلنا الصومالية دومر كأننا قبلنا واحد نيروبي كسعودة أدون كده هرتوا يكده عنا واحد اللي عصب وصبريس يقوم نقونيس ما فهمت لكن واحد لياب لو واحد يقول نقطة ما تكانها ومعجزة أنا يقول نقطة إن أنا أركض ضد لبعتيزان أو فيكتما وأن هدي كرينين وشرعي عادي كرينين يضدك فيكتم بلين كسمينيو عياري ده هو بين هو قيادي هو رواية شو شعبي لكن إذا كوشك أبا كيني هداك على هاللو كيني أبا شرعي وشقيا قفك صومالي إيجا شرعي عادي موياني شرعي وشقيا أبا صوت مكوشيجا أنا كي ما أمسن شرعي وشقيا هل كان والله بلا وشقيا كيني شرعي قفك أبا وأشتمي صلي على النبي هل مرء دقيسو Soomaalidiina ima qaleysay Allah iyo rasuulana idinku dhaariye kiiska maskaxdiina dib u celiye gabar waxaa jirta hadda kor qolka guriga riyaan bajaaj lagu shirqoolay oo fiimihiisu qojiye iyo riyaar ay wada shirqooleen oo videoyaal laga duubay oo maxaa la dhahay maxkamad kortay
oo dowladda Norway ay soo faragashato kiisa Norwegian ah yaa xasuusanaya dowladda soo faragashatay kiiska dhaxbu ku dambeeyay sidii maalinba maxkamad la isu saarayay laaluush la isaga daba bixinay al akhiran waxba waa laga soo qaaday abay macaanta iga raali noqo aniga keeya hal kiisa waxaan dhihi karaa hal mar hal صح laaluush waa shaqeyn kiisaan dhihi karaa keeya hal kiisaan waxaan dhihi karaa halkaas qof markuu qabto waa la gurin karaa waa qofkee ma garanaysaan wiilkan keeyaatiga oo baraha bulshada jooga maaragta oo dadka caawiyo wadartay Soomaa ها نينك أو مالها يحتاج حرحرة magaciis maxaa la dhahaa wiilkaas oo keeyaatiga caadiga kale leeyahay soo qabtay masuuq bataan aragna wiilkaas keeyaatiga kiisku gacanta ku أباي hayo أني waa شو badin شيء دقيسو كينيا أباي محكمة of course الصومالي أنا قاعدنا وحنا لعبنا هاي محكمة داس شرعية هذا شرعية أباي أدي وتلقي شيء أو أدي ضد صومالي مركي هرت تسقط سنة أما إزدقالان بدنا ضد كان كيان كو دولد وحي كل هذا يعني مربتين تحت حادث because أنا الصومالي ما دام أنا هاي قضيال قبيل صومالي نمي وحبان وحقوق بسنة موت وحلا لو dadka markay isdagaalaan oo kaleeto hay marabtiin ina soo heshiisiin marabtiin ina adinka dhaxdiina odayaal iyo wax galaan hada adu qof kamid oo diido yiraahdo aniga waxa ku qanacsanahay maxkamadan waa ku soconay adiga intay doontaa noqoto laakiin hadii laba maalin markay Soomaali qofka Soomaaliga oo taga qof kale jaamidaba wuxuu leeyahay ani waa ka tanaasulay ma fahantay marka kay aba sharci way leedahay qof kastana sharciga soo u mara waay adiga hada aad go'aansatid inaad sharcigaas adiga aad maanta waxaaga ku soo dhacsatid oo aad isdhiibin keen sharci waa ka shaqeeyaa laakiin Soomaalida abaasas aaminsan waxay aaminsan in lacag la qaato waxay aaminsan in qofka uga baawar weyn yahay Kenya waa shaqeyn lacag mش shaqeynayso Kenya dadka Kenyaatiga markay marayeen mise dadka Soomaalida markay marayeen qoladeed ula jeeda markaa qalbi labadaba Kenyaanka iska bidaaba Soomaaliga sheegay Kenyaanku corruption iyo musuqmaasuq ma yaqaanaan Soomaaliga qofka Kenya markuu sharciga mara waa qof laaluush bixiya musuqmaasuq abiisa wax sharciyeed wax xaquuqan Kenya kuma dhixilaayo qof Soomaaliya sababtoo soo ugu dhaxaynina isagiyaaba sharciga ku tumanayaba isaga qofka Soomaaliga ah corruption abiisa sharciga ku tumanaya taana kugu raacsanba halka iga dhigo laalo Kenya aniga sharcigeeda wax badan dad isla ka caawi dhibaatooyin haystaan oo tacaddi loo geystay aniga hal nimada loga markii Kenya laga hadlayo gabar kobsi loo geystay waxa laga yaabaa meelaha maarta shaltarada dadka la geeyay shaltarka waad garanaysaa Soomaaliya qaaliye shaltarka dadka la geeyo waa laga yaabaa qof kobsi tacaddi fiidiyoyaal cadeyna marka la geeyo shaltar gabadha inta la geeyo inay caawimaad hesho UN ka sii qaadaan laakiin qof Soomaaliya oo kale Kenya jooga oo tacaddi u geystay maxkamad ku maray uu ku soo guuleystay walaal halkan igu imaa kaale ila sheer grade documentiga garay tus aniga markaas waa ku dhageysanayaa Kenya hot first of all meel walba Kenya waa aad u dhageysanayaa it's all about money wallahi kulit ani ilaahay problem iyo kiis iyo balaay ma aan gelin koode laakiin Kenya aba qof kasta soo asaga iska dhigo waa dad dhageyso qaali Nairobi horta dhibaatada ka jirta waxay tahay dadkii xaquuqdooda ma yaqaanaan qof baa iska imaanayo wuxuu ka bilaabayaa meelaha shiishada laga cabo meelaha balwada lagu cuno waxay u maleysaaba gabadhii ilbaxnimo ana reality ka guys waa idin salaama first of all okay salaam hay qeyra ku rajeynayna busy ku jira Nairobi dhibaatada salaamina guuleyso walaal ku soo qalbi Nairobi dhibaatada taala waxay tahay gabadhii Nairobi loo soo diraa waaridkeed meel u direen ma yaqaan waxa lagu leeyahay waa soo shaqeynaa Nairobi Mareykan miya Nairobi waxa ku noolaan karo qof la biilaayo ama qof ganacsi haysto ama qof fiicanaha oo meelaha sida oo xoogiisa ama reer ka shaqeynaa ma fahamtay laakiin hadaa tiraahdi Nairobi aan maana waxaan ka bilaabaa meelaha xunxun adaa ku dhacaysid gabdhaha Nairobi loo soo diraayo ka feejignaadaan maamooyinka aabayaasha nin haduu yahay waxa la yaabaa asaga laftiisa haduu intuu iska baahdo kuwa telefoonada dhaco iyo kuwa balaayada cabay inuu iskaga darsoomo Nairobi had 20 sano dhex taaganaan qaaladan I think waa biga sii horeysa qaalad ma xasuustaa waagi oo qaal magtaanayada dad hore islanay marka
هاي هلا إنا عذر بقر كيجي وسودا واو marka Nairobi abaa qof walba suu iska dhiga waay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dad ka ganacsada waa la sheegaa horta ma arki baani qaali ma aragtaad wali dadkaas weligay ma arkin qof dhibaataysan xataa weligay ma arkin qof wax lagu sameynaayo weligay ma arkin ilaahan ka magan galno ani waa arkay gabar dhibaataysan oo la soo ceeriyo waa arkay gabar dhibaataysan intii Nairobi la keeno biilka laga jarto waa arkay been ma fiican mogta ma de waxaas waa wax oo de family qofka laakiin waxaan ka hadlaa qof oo de dad kale oo koraad ama sheekada hadda ay sheegayso shuushu oo kale iyo weligay ma arkin qof ay ku dhacday ama social media hadda ayaantan waa ku arkaa laakiin waxaas ani nolosheeda life na lama kulmay qof ay ku dhacdana ma arkin gabar ani nadartu waxaan dhahay walaasheed intay uga imaaday Soomaaliya walaasheed la nooleed markii dambe waxaa dhacday walaasheed isku dhaceen banaanka u bixisay waa walaasheed la dhalatay isku abiyiin banaanka u bixisay markay banaanka u bixisay waxaa dhacday gabadhii inay bilowdo magaalada inay gasho magaalada gashay gabadhii maalmaha kamid ah show dhowr bilood markay ka soo wareegtay waxaa ii imaatay gabadhii oo sisi marka waxay wadataa veeb habeenbarka horta waxay u soo garaacday 9 saac habeen albaabka waxaa maxaa ahayd waan cabsaday anaa cabsadayba darashadan fiirshay hiblaayo waay magaceedana sheeg ma rabi hiblaayo maxay ahayd 9 saac maxay abaa iga fur gabdhan la seexanay gabdhii daaqadiyaan kala hadla gabdhii ba albaabka قالنا أعرف قلبك محا بلوغ كسارتين كارتو براغا قطعي والله كل تاني بلوك ديل قف مكسارية هالشيء وحسمي أصلي ما شرت والله وبلا أعرف قلبك ضدك عايتا ما وين فاميلي وفريدة وايدا كسارة باعي هالشيء هرت شيء ده واحد بلوك مكسار ماي والله وبلا أطلع أعرف قلبك ضدك عايتا ما أقسم بالله وابين ضدك فوسوين كريحة ما وين فاميلي وفريدة في عموا باي والله قفنا قانوا laba mid ay dhici kartaa ama dad qof dadkay teamkay dad oo kamid ah bloogeen ama ku dhahay waa teamkaaga ba ma teamkaaga le bloogeen qalbi abadan ciyaarka galmuduga qaaliladan qoraal u soo qorxan waligeey ma rumaysanayo qabyaaladii Xamdi Axmed iyo ayaa igu dirtay qaali iyo diyaaq iyo okay ma ku aqaaniya boo maxaan kula igu qaadira Xamdi ma kaftar ma ku bloogtay iimaanka laadihi may walahi ma dhinaca kale ka ciyaaraysa arko weligeed ma dhicinbo weligeeba qof aan game iga soo horjeesto ma bloogin weligey xitaa hadduu yahay qof best friendkeyga ah dadka waa la iska blogay fiir shuushu haday markaanba kuu soo qoraayo codka shuushu anagoo ku hadleyno hibaaq iyo Xamdi ay u qaadira maalooda ma ka wadaa kuwaasa igu dira okay war ma qaadano والله سقاد بلوغ بايلكين waa ka qaad laakiin mooga sababta lagu saaray waa inaad sheegtaa inaad eer حرام والله بالله عارف dadka reer fuusada kamid ma uu kaftama la reer fuusada ma gabdhaha dhan oo habar gidin nooc isugu midinka landheere okay ma wallahi baay gabdhaha jaamacada ayantan fuusta jaamacada Indonesia loogu tago waaya shushu walaal cadeyntu waa tan gabdhaha waa dhibane maadaama adigu xaquuqdaad u hadasho walaalay dulmanayaasha gabdhaha iyo caruurahaba gabadhan xaqiiqda u hada gabadhana drug addiction laga dhigay nolosheeda waa la baabi'iyay khalaas waa qofkeeda jirkeeda hadda laga ganacsada iyada dhibana ah sidaas horta kiiska Maryan Axmed markan idin lahaa fiidiyoyaashu way jiraan iyagoon soo bixinin waxaan u maleynayaa sanad ma ka soo wareegtay iyo xoogaa asaasan u maleynayaa Maryan Axmed kiiskeeda intaan ka hadlayay maalmihii ugu dambeysay oo garyaqaan la soo qabsan doonta daaqadana waa maalmihii aan sheegay isbuuc ka hor Maryan Axmed inay guri ku afduubanta ay ku xirantahay warkayga horta ma idin dhacay kadibna dadkii dhibanayaasha ahaa oo victimka ahaa qof ila soo xariirayay ولا وما هتصنت هالكا فدي ميرسي ما فهمتين هذا الكيغ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساسا هورتا كيسكا Maryan Axmed marka hore igu soo galay kadibna dadka dhibanayaasha rag iyo dumar midmida la ii soo wacay qof walba wuxuu lahaa cadeyntan ku tusaya shuushiyay sababta uu social media aan u taagi kareen waa sababta ay sababta laakiin waxa ogolaaday gabadha Yaasmiin la yiraahdo gabadhan sawirkeedan idin soo dhigaya sug marka hore saad u fahantaan kiiska iyo hadalkaani meesha uu ka socdo Yaasmiin oo markii dambe Yaasmiin afar qofood dhibano ah
waa wiilka ilmaha u dhashay waxaan u malaynayaa waankeena halkan wuuna ka hadlay wiilka ilmaha u dhashay waayo ilmaha yarka isagoo dhibaataysanaa la iisoo diray wiilka yarka oo wiilku uu dhalay baasaboor British uu leeyahay saabuunta Tayda la yiraahdo ama ummada dharka lagu dhaqo reer koonfurkuna oomay u yaqaanaan isagoo ilmaha yarka cunaya 4 habeen iyo 4 maalintii guri lagu xiro leys daroogay of la wada noqday dadkaanina markay daroogaystaan seexdaan maskaxdoodii miirkoodu ma joogo isagoo ilmaha yarka saabuun cunaya horta la iisoo diray oo dayacan warkuma idin dhacay ilmaha yarkaan waxa lagu rikiniin hurday waxa lagu seexiyaaba sharooboyin hurdaa la siiyaa naagtaana ilmaha yarkaa dhashay wiilka ay u dhashana waa wiil reer Ingiriisku degan yahay laakiin Nairobi ganacsi u tagay waankeena qolka sida isku barteen iyo dhibaatadii iyo wixii soo kala gaaray iyo muhaab qorto iyo dhibaatada u geystay isaga horta wiilku afkiisa kaga hadlay gabdhaha kale laba gabdhood oo maxaa la dhahay gabarina ay ka soo jeedo maxaa deegaamada Soomaalida kale gabarna deegaamada Soomaalida kale ka soo jeeda ma doonay exactly mo inaan asiiba magaalooyinka ka soo kala jeedaan labada gabdhood waxa jiray iyagana baasaboor laga qaatay oo iyaguna dhibana teamkan oo ah baasaboorka ujeedka ay naagtan uga qaataan waxay ahayd inay ma fahmaysaa danihii ay dumarka ka fushato laakiin boqorada raxmaan naga aqli badan ay ahaayeen way isdifaaci kareen warkuma idin dhacay waxa yaraa mid yar oo kamida laga qabtay fiidiyoyaal laga yaabay iska fahmaysaan sharax yara laakiin wax saa u sii buuran ma sanayeen waa naaga iyagu isdifaacay oo go'aansada bil kadib kiiskan iyo lugta inay naagtan kala baxaan dagaal xoog lana la gal gabdhaha kale ee naagtan ka dacwoonaya waa dad ilaa maanta victim oo ninka muhaab qortooyo la yiraahdo iyo ayada lacaga baaday ka qaataan waxa la isku dayaxitay niman inta loo geeyay in la yiraahdo hebela Mareykanka ka imaaday hebela Ingiriiska ka imaaday hotelkaas uu degan yahay ugu tag waa gabdho la iibinayay warka horta ma idin dhacay gabdhaha gabar kamida waa deegaamada Soomaalida laakiin calanku u taagan yahay kamida Djibouti way maxaan u qarinayaaba waa gabar nin qabo balwadan lagu ogeeyna laga duubay kadibna waxa la damcay hoosta wixii la raba laga siiyo horta kiiskuba waa sida gabdha Soomaaliland ka soo jeedaan gabdha Puntland waxay ka soo jeedaan Puntland gabdha kale reer Galmudug waay xaqiiqadu waa sida mugtamo reer Muqdisho deegaankan cabirayaaba gabadha kale waa reer laba gabdhood oo kale waa reer maxaa la dhahay to deegaankan yiraahdo Soomaali galbeed dhulkanaga warkuma idin dhaca qalbiyaan soo hal gabar oo kamid wax dhibaato loo ma geysan gabar kamidana dhibaato loo geystay gabdhuhuna isku wada dhibaato isku wada duruufo maahan kiiska horta halkaas uu ka soo bilaawmay hayeeshee waxaad u malaysaa walaalo sidii tusbax dabada goosto kale qadiyadii inay ugu noqotay ninkan naasaha weyn la waa nin habar gidir oo reer Xaaji Saleebana wala la soo dhawaa aan ku soo dhaweynaa weyn ilaa hooyadayga qad wiiga naasa weyn ma dujeedaan wala la bahalkan buufsanid u malaysa na waxaan buufsani sug sawirkiisa kaligiisa soo saarayay isagoo horta la sawiran waa ka mujeedaan isagoo hadana la sawiran waa ka naasa weyne qolka jaamacu maanta igu imaado marka hore si degan oo ilaahay wuxuu Shuushu Cabdiyay nimankan maxaa isku haysataan xageesa adiga ka soo maqasho warkan waan u sheeg waxaan ku aniga marka hore gabadha kiiskeedan ka hadlay kadibna niman qof tiimkaas u dhow waana runtii ilaahay sidoo ugu ogyaano ma doonayna carabaabo laakiin nin ogaadeen oo tiimkaas u dhow ayaa koow arinta Maryan Axmedey marka ugu horeysay soo qarxiyay ujeedka u soo qarxiyay qofkaasna nasab kaamil inuu yahay nin rageedna aan marqaati furay gabadhaas tacadiga iyo dhibaatada lagu hayay darteed horta u soo qarxiyay wuuna ii sheegay in drug addiction noqotay wuu ii sheegay nolosha in laga riday wuu ii sheegay jirkeeda in laga iibinay wuu ii sheegay Maryan wadada ay maraysa maanta qof cilmi lama ahan inuu soo qof kale xitaa badbaadi karaynin iyadu maanta ay noloshii qalaas aqbashay miskixiin inay safiyoobeen gabadha la sixray wax waliba lagu sabiyo gabadha ay sheegay alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu gobaadina aad soo dhawaaw ma fahanti meela socotaan qalbiyaal horta arinta saasan ku bilaabay cadeymanka marka aniga fiidiyoyaashu indhaha ii saaray waa fiidiyoyaasha aan ku dhaaranay fiidiyoyaashana wuxuu ii sheegay muhaab boqortooyo iyo naagta Yaasmiina inay haystaan ma fahanteen muhaab boqortooyona saad u fahantaan muhaab boqortooyo waxay ilma adeer yihiin ninka la yiraahdo Axmed muxuu ahaa Axmedki muxuu Nairobi dadka ku diri jiray jidka shaarica dhexdiisa soo qoro walaalo muxuu ahaa Nairobi wiilka yarka oo ku tooganay wadada dhexdeeda askariga ahaa Axmed Rashiid soo ma ahayn Axmed Rashiid muhaab boqortooyo iyo Axmed Rashiid waa ilma adeer qof waliba muhaab boqortooyo dhibaataynaya Axmed Rashiid waa la ogyahay Axmed Rashiid dadka uu dhibaataynayo sababta ay dadku xitaa uga baqanayaan muhaab boqortooyo boqolkiiba 90 waa ninka Axmed Rashiid la yiraahdo warkuma idin dhaca
markuu dad caana doonaya in la soo daba iyo marka la doonayo qof in maaragtay la soo qaato Axmed Rashiid kaas waa ninka kaliya oo muha boqortooyo ninka la leeyahay gacantiisa midig si dadka ugu dhibaateeya وين هذا كفانتان dadkana lacaga laga qaata qaarna waa laga ganacsadaa jirkooda niman Mareykanka imaada iyo Yurub taano hotel la dega wallahi oo billahi oo tallahi inaana beeshiga warab bilcisa kalmad kale inaana ku dareenin dada laga iibiya gabdhaha u jeedaan walaala marka horta hadalka anigu halkaas uu ahaa fuustadii maalin dhawd waxa la damcay in qabiil loo riixo waxa la yiri ogaadeen baa tubaraac loo yahay reerka ogaadeen baa sumcada laga xumeynaya 30 jeer intaan soo fadhiistaa war ogaadeen oo idimo qosaysa ilma adeerayaal war anigu tiim kastooma tiimkaas oo niman liiraabaan haystaa shaqo kuma leh cid kale waxaan haystaa anigu waa nimanka tiimkaas oo liira markii la arkay inaanan qabiil ka hadlaynin sanka iyo faruurta iyo afka iyo carabka leega dhaxmarsiya qabiilkii oo qabiil anu dhaqaaqi diida markii la arkay ayaa hadaba fuustooyin kala la soo riixay mid kasta meeshaan marka waxa jira si fiican ila socdo walaalo hadalkan la socda niman tiimkaasowga tareeglayaal oo biila naruura dalkeena taal alla ninkiina casaan ogeyn diibba loo noqonaya wala noqonaya niman tareeglayaal ah ma ila socotaa walaalayaal niman tareeglayaal ah oo giftara ah oo TikTok jooga ayaaba nimankan maalgeliyo oo lacag siiya nimankan tareeglayaashana Nairobi sanad walbay tagaan gabdha lagu casuuma gabdho caruuro yar yar lagu casuuma qaarkood ayagoo siigeysanaya fiidiyoyaal laga duubo laga hayaa rikaato qaar kamida raali iyo nusiya baray ku yihiin hadda ninkii qilqaylinaya markuu meesha soo kor gabadha kitaab jaamaca saa inta u furat kaamirda wajigeyga ma habo muujeeda intaan leekay ha waxay ugu tiri habo wax ma ku qariyaa mise runtan ku sheega ma ay runta ii sheeg waxay tiri aniga gabadhaas waxaan uga nax waxay tiri balwada horta way wadata gabadhan hadalkan walaal si fiican u dhageysta balwada yar ay laheedo jaad iyo sigaar ku siman tiim dhaaqaha gacanta ku helay ninaanan doonaynin magaciisa inaan sheega hadda oo tiimkaas uga nimanka oo leeyahay kamid ah Nairobi loogu ballamiyay sababta aanan u sheegaynin walaala waa cadeyn haddaad iga maqashaan qofka ma sheegayo macnaheeda kama dhigno qofka inaan qarinayo ee waxaan doonayaa cadeynta inaan soo dhameystira maadaama ay igu tira cadeymo kale aan kula wadaagaya ma ila socotaa ninkaas gabadhan loo geeyay nimana lagu casuumaaba nimankan tareeglayaasha oo giftarada oo TikTok nala jooga ee tiimkaas oo u niikinaya walaala sanad walba Nairobi markay tagaan gabdha yar yar loo keena oo lagu casuuma gabdhaha yar yarka nimanka loo geeyo waaba nimanka tareeglayaasha ah gabadhu afkeeda waxay iga tiri habar yar hebel ma taqaana oo qolka idin la saarnaa habar waxay tiri halkaas la igu keenay codkiisina waa kana codkiisina way ii soo dirtay see dareemaysiin ya oo kala kiciyaalin ninka walaalo aan badhex gal show teamkaasowgu walaala khaniisiyada Nairobi fadhiya waaba mushkilad aan ba laga lug bixayninba waaba niman ganacsiga dumarka iyo caruuraha yar yarka muddo ku naayada de malay maqla bisinki raxmaanke alla duni kalaan ku noolahay aamusa anigiyo gabadhi teedii la yaabano maskaxdu ila xanuunayso leena habareeray ma qofkan dhano weyno oo caan ka dhalay oo giftarka adiga dhibaato ku geystay codkiina aan dhageystay igu tiri habo telefoon iga halaysan lacag hadda ma haysto telefoonkan soo sameeysanaya telefoonka markaan soo sameeyana ballan waxaan kaaga qaada cadeymanka inaan ku soo diraa horta telefoonkii gabadhi soo sameeysanaysa soo booda naasa weynahani waa nin habar gidira naasa weyne alla wayga naasa waa wayga cajiro naasa weyne dilay futada ka fuula wallahi waa qolka jaamac maanta yaa joogay markaan ka hadla tiimkaasow cirkow ka soo dagan naasa weyne wuxuu yiri wallahi waa ku fuula naaya waa ku fuula futada ka fuula waa lagu wasaa 2 mitir lagu 2 mitir ma haysid walaal adaa lagu fuulo horta naasa weyno walaal waxa la yiri naasa weyne nimanka lagu shaqeysto kamid ah horta markii hore isaga victim laga dhigay ani nimankan soo idima sheegin qoomuluudyo yihiin soo idima sheegin inay lesbian yihiin naagahoodu soo idima sheegin duulkan iyagu inay wada fuulaan horta naasa weyne waxa lagu yiri markii hore isaga victim u noqday walaal isaga laftirkiisa gashteen
haba gashtaa ma xume hadda waa la shaqaystaa naasa weyne waa habar gidir waa nin habar gidir in adeerkay yaa naasa weyne waa nin in adeerkay nin habar gidir alla candooy ma futaxaar lahaad fuush futamiyaa lagaa fuula nacaladi kugu dhacday naasa weyne waa nin habar gidire hoogayo bacayo istaaqfurle adduunyada dusheeda intaan saarnaa way ii dhimaneed tiimka baadda dadka ka qaatuu ka mid yahaa marka ninkaani wallaahi oo bilaahi oo tallaahi wallaahi inaanan been idiin sheegayn wiilalow baad ka qaato reer muqdisho ayaa isoo waco dukaama haysta oo igu yiranayaa ninka kula doodayay walaala dadkeena victimka dhammaantood hoosay fadhiyaan ilaan victimka dadka ah ilaan walaala dadkan dhibanayaasha dadka u ah dhammaantood hoosay iga dhageystaan waa idin salaamayaa sheegisi inaysan jirin waad aragteen soomaa qalbi xogta ila wadaaga rag iyo dumarkiinaba wallahi bilay ka tahay inaan codadkiina soo dhigaynin show dadaaba u dhibaataysanoo na dhageysta maalin walba naasa weyne nimanka waaweyn oo dukaamada baadda ka qaato ka mid yahay DCI-daneena ciidamadii Nairobi ee sirdoonka ahaa Kenya walaalo waxay soo ogaadeen nimankaanu inay dilaa yihiin inay dadka baad ka qaataan yara suuqa qalbi codkan idin dhageysiinay isagoo cararayaan codka idin dhageysiinaya markii la qabtay ninka la yiraahdo farxaankii sarqaanka ahaayee alkulistaha ahaayee gabdhaha dhibaatada u geystay dadka afduubtay isagana waa bursadeen isliya la isku ilaaliyaa naasoo anigu ma yaabin naasoo meeshan ku yaabo ma fadhiyo yara suuqa codka codkayga ma maqashaan codkayga caadi ma maqashaan dhageysta guys aniga dhalinyaradii gaariga waa soo ogaaday exactly gaarigii farxaan bare jalladooda waay gaariga waa soo ogaaday wiilasha ila joogana wiilal garaa waaye wiilal askara waaye wiilasha ila joogo soo kala suuqa gaarigana waa sax waa gaari oo maxaa la dhahay كل فودين وأيها أتجين سو أركين سو سفر سو فيرين إيجا نجولا مركا أنا قد أسكت بحاجة جايز والسلام يا حتى يويسين قد حتى يويسين إلا يفري حتى يويسين حالك وحيا والسلام يا كاميرا دميدين فرامين انتو سا إنه يسقيها إنك لمسا عدكوا مقاشين عدكوا ما مقاشين عدكا ما مقاشين عدكا ما hoogayo bacayo istaaqfar aan mid idin sheega marka mid aan idin sheegaa soo ogaaday askarkiyaati may maqlaysaan Soomaali keeyaan askaraha kiisaskan ku waxaaba lagu yiriba sheekadan traafiga ah Soomaaliya ku jirta qabiil walba askartooda nimanka askarta isliika ah oo dhan kiiskan waa ku wada jira walaala dad madaxa meeshan ku jira la dhahay sheekaduba waa waaweynka warku ma idin waxaan idin dadku maxay u dacwoon laayihiin war dadku maxay sharci u raadsan laayihiin warkeeya wadan dawlad la maahan miya waxaaba lagu yiri walaalo horta meeshan askara ku jirta waa inaad ogaataan nimankan markay dadka kufsanayaan iyo markay dhibaataynayaan iyo marka la dilayo iyo marka la afduubanayo iyo tacadiga la geysanayo walaalo waxa lagu yiri niman askar Soomaaliya ku jirta meesha Soomaali dawladda u shaqeysa oo nimankan la qaraabatay yaaba jirtaba marka makaamiradan idin shida oo idin tusaa wajigiisa walaalayaal mid inta inuu isagaya wajigiisa mise codkan idin daaraa labada teerabtiin aniga shuushu cabdi itusoo itaabsiya la dhaan tee labada rabtiin natus okay waan intusayaa suga waan intusayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun naasa weyno walaala ilaan futada waxaad ugu wardinaysaa futaad ka dhadagtay nacaladi kugu dhacday ninkii ugu horeeyo habar gidiro futa raadinaya hooyadaadii sagaalada qaxbada ahayd was show waaba nin tiimkaas oo ka dhaganay walaalo futooyinka guys aniga dhalinyaradii gaariga waa soo ogaaday exactly gaarigii farxaan bare jalladooda waay gaariga waa soo ogaaday wiilasha ila joogana wiilal garaa waaye wiilal askara waaye
meesha la joogo soo kala suguya gaarigana waa gaarigana waa sax waa gaari oo maxaa la dhahay dowladda farxaan baraja ku la qoodeen waa ayaga u tageen soo arkeen soo si fiican u soo fiireen ayaga la jooga marka aniga qadku iskaga baxaya guys waa di salaamaya hadda ay weysiin qadka hadda ay weysiin ilaa iyo bari hadda ay weysiin halkay go'aya waa di salaamaya ها وادرت waa ninka hadda soo qoray maxaa iga qaldan ها waxa ka qaldan walaal waxa naloo sheegay sarqaankii kastuumo uryaho bal kula naasa weynaate dhagayso wariyaha ninka naasa weylow wax kala kaama qaldana waxa la soo sheegay tuug tiimkaasoo ka tirsan oo alkulista ah oo sarqaana oo nolosha ka dhaco umada baad ka qaaday inaad tahay naasa weyne inaad gabdhaha futada iyo ragga ka martaa lagu soo sheegay qoomaluu tahay inaad baad dadka ka qaadataa lagu soo sheegay hadaayta qolka jaamac markaan saarnay hadalka bilowne soo tadigu tiri anigu tiimkaasoo kaba tirsani ninkii farxaan bareejaha waa la qaatay gaarigii qaataa aniga qaadan raba wariyaa naasa weyno show ilaa waxaa taa nin ummad soo باب هويدادي قحابداهيد iyo dhiladii ku dhashay wasay ilaa waxa taa futa jacayl dhashay وبدأت شكلها تتنا gabadhan kalarkaani wadatay ها السلام عليكم هورير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو وابروك سلام يا مقعاه ودوه يا بروا دوه ما شاء الله ودوه. مقعاه بو وي فرتو عبد الفعل بلدها. هاي قبيل كاغنا هورير أنا قاعد أسمع حمدان. قبل adigu hayada wareerinay gabreenna ana weydiinay Ismaan Maxamuud baatay kale Ismaan Maxamuud dadku wada garanay ma jarteen tahay haye maamo Ismaan Maxamuud ka tahay مثلا متكتنا هوس مرقوا سيدنا حسين حمدان موقته way caruurtaaduna أصلا فاميلي بهنا اسمع حمدان أصلا Ismaan Maxamuud baad family garanay islatiin okay way caruurtaadu way maamo ويرتدوا لي okay mama soo dhaw kiiskad u timid baan rabaa inaad guda gasho noo soo dhaw bal war sabkana iska gabadhan imka joogtay waa gabadhii noo timid aad adigu dhashay waan fahmay gabadhan ma gabadh curadaadii baa amsa وأنا عرضي ذويها okay haye soo dhaw bal kiiska wata muxuu yahay wayo ماما كيس وطوحة يوهس محفلت نادى ولا أدوك ما تكلم مستد ما أدوك هذا الشيء ماما كيس كان كوي وحوي أنا وحنا هو اللي حرورة هاي استمرت واي وحنا وسكو هي حمالة تابانها عرفتد وأغون واللي صد اللي حرورة صد حابة أغونه ما كلا أبا عرته صد حذوي أنا أغون هاي كيو دمي هذا بنت أصيد لو تونك بيشان دقة إيه عروت هذا وين مسبب هذا هرتها برير وصدح بهاد وصدح بهذا صدح ذا بأغنيهين صدح بأغنيه واي صدح ذا بهذا يكليهين صدح بس عثمان محمود الحس صدح ذا بهذا بوع عثمان محمود هي كيو دمي بيش أفراد الله بدل واي لو تونك بيشان هذا كترنا أصيد دقة واي marka hadda waxa idinku imi wada kiiskayga arrimihii waxa laba caruura ka ugu dambeeya miyaa laba caruura hunda haye caruur hooyo dad hore iyo walaalo iyo dehelna wuu lahaa ma garat caruuro horena uu lahaa iyo baha kale imsa bahado kale uu lahaa hal baha wala naga waaweyn haye marka xogaa baa si naloo dulmiyay marka taqaanay sidee la idin dulmiyay bal horta odayga nooga warano markuu imsa caruuro kale uu lahaayo maxaa dhacay haye caruurda bah kale uu lahaa naga weyn buu lahaayo way waa toban dad waaweyn way wiilka hada sidee la taka soo jira waa ugu yar واي أديك بعض هذا لبعض هذا عرورنا تبنجر يا لوي تبنجر واي
marka dhaxalkii waan ku kala baxnay xogaa yar waxa hanti yar buu ka tegay gurigii qayb weynaga qayb baa ku dhaarata waxay dhan guryaha annagaa lahayn oo sibaa naloo duutiyay adigo calaa kulli xaal waa la iska ashoon boorsada aniga caruurta haye okay waa weydiinaya cusmaan maxamed yaad ka tahay maama cusmaan maxamed yaad ka tahay adigo أنا حسين سحول بانكاه suxul suxul okay caruuraha guniga ka kala yihiin عرفت بهدري بها يا غبوي Badr iyo Bah Yaqoob okay kuwa saddexaadna بس لا بس كريرة laba isku reera okay waan gartay مركب على المسمية وراني dhaxalkii isagoon sagaal ber isagoo mootan baa leeyahay carruurta soo wareeg sagaal ber isagoo dhimashiisa ku suxul haa suxul okay suxul haddaan fahmay suxul baan mooday markii hore suxul haa waaye waxa carruurta soo wareej maadaa lagu leeyahay carruurta soo wareejiyey horta bal odaygii markuu dhintay ee la aasay wixii dhacay dhaxalkii sidaad u kala qaybsateen waxaad isku qabateen kiiska nooga bilowba markuu dhintay maamaanu kuma odhan karo xilligii guurkii iga soo bilow laakiin markuu dhintay nooga bilow dhimashadan ka hadlaya haa markuu dhintay allah yarxam raxmi la aasay maxaa dhacay markuu dhintay waxaa dhacday in ay wiilal uu dhala yimaadaan markuu dhintay xamar baan joogay waaye baan aaday anuu xamar joog markaa maalintaas aan xamar uga degay habeenkeedii inta aan sii socday anuu buu dhintay anuu safarka ahaa buu dhintay odaguma garata waaye muu xanuunsaday mise may mutal qaflu ku dhintay mutal qaflu ku dhintay allah yarxam raaximiin haye haddaan xamar saa uga degay hal saac oo habeennimo goorta odagu waayo dadku soo wacay lama hayaa la yidhi ciyaalkan gurigu diro gurigaa lagu jabiyey ma garata waaye odagu waa meyd waaye aniga gadaal khamiistan duulay jimciina waa soo noqday waaye gaalkacayaan kasoo degay qarnaan waxaan nimi 6 saac iyo bar habeennimo haye baan qadaymi odagoo jimciin la aasay baan ugu aan habeenka sabtiga soo galaysa 6 saac iyo bar habeennimo waxaan nimi meesha la qardho haye gaalkacayaan kasoo degay waaye kabacdi haddii ay u dhacday arrintaasi qadar bas ka dhacday أنا ما مودي دتك إن أنا ضلنا ظلمي نقول يعني ضد إيه هالنوع هنا نقول يعني بمودي واي ولا يمي ضد إيه على الساخر ضد في عند على الساخر أنا وسود وواحد كوري حتى ولا شقي باتي من قروا ضو خلها ما أنت جنينا واحد كوري اسك هوتيل هتجني أنا قري قد دقة أنا ضاعت بجاهد موقته هاي بس كان ضد ظلمي وصعد هاي بمنا ضد أضي تحسين نوعي ما واي هانتida ka dhacday u socolayeen ma garat haye bacdi sagaal bar markay ka soo wartay wax carruurta soo wareejay gabar baa Sambia ka timiyo waxay haysataa baasaboor carruur ugu qoray labada carruur aan ku dareena soo wareejay labada carruur waayo naagta ku oranaysa markaas soo wareejay carruurta ma naag u dhalay baa mise wiilashiisii adeerkood haye waxaan ku yiraahdo soo dhintaan waa nool carruurtaydan wareejin maayo waaye dagaal baa halka laga bilaabo waan gartaa قال يربو كتجا حراش قاري بو كتجا حراش wax walba weerar baa lagu qaad akoomada weerar wax walba walay wax la keen mobilka waxaan ka fiirinaynaa xilliga shaqada ay waxaan daacad baan bas ka wadi waxaan hooya waay akoomada waa loo dhacay akoomada la qaatay wax walba adigu waana lagu tarkifala ma garat aye waana iska qaato shibaan iska ii guriga waxa la saddex bari gudahood waana kaga gudho wixii ka yaal ka qaadataa guriga marka idinka lahaay odayga lahaa la naxariistay haye waxaan ku saddex bari gudahood guriga deganay ma guriga deganay sharciga lagu kala baxa hadaa heshaanina deedan kala hadaa lana naga leh laakiin sharciga aynu tagno waay ala kulli xal sharciga baan isla tagnay guriga waa la dhaxal baan noqon iyaga habartu hooyadiisa hayd iyo iyaga ba israacado waa naga badnay 12 qof ana wala 3 qof baan nahay guriga ala kulli xal iyaga qaatay markaa yaa siiyey maada waxa siisay maxkamadda baa siisay dhaxalka ku siisay imise guri buu lahaa odaygu markaa imise guri buu lahaa laba guri buu lahaa labadiiba ma iyaga la siiyey guri waa ku dhaarteen oo waxay dhaheen islaanta waxay tii buqcadooda iibshay dhismaha aniga dhisay waxna way iga caawiyay maxkamadda halkaas wixtaan adeerkada soo badixay waxba kuma nahay dumaashadaba guri iska lahayd haye isaga baa halka ku dhaartay waan gartaa aniga way igu soo badixay aflagaadhi igu geysay wixinaaya
horta anaa shaki baa naga kaajin in lagu kaa qabay in kale isu kaa sheeg ayaa haye waxaan ku qabidayda furudayda sharci baa ka yaalla baan ku yiri midaadu ii haysaba imaan furi kartay imana qabi kardhide walaa ina kala kaxee baan ku yiri waaya maxkamad baan sula tagnay dhaxalka waa la kala qaatay dee laba qof awrid 13 qof iyo 12 qof iyo 3 qof maxay kala heli karaan xoolo dhan iyaga qaatay ma garat waaya maxaad idinku hesheena leedii siiyay anagu lacag 6,500 aan helay lacag 6,500 lacag ma hala guriga ma la ka saaray waaya cabasho ka ahay dhaxalka waan ku kala baxnay waa ku kala guurnay dhaxalka isuma haysano ma garat laakiin wadaga maaliyadda wuxuu ka shaqayn jiray qardho waaya maaliyadda gaasima hadda hanta dhowra ayaa maaliyadda buu ahaa ma garat waaya lacag baan qaadan jirnay mushaara mushaarka kaararka wata sida khiyaano ka qaato bangeela loo wareego adeerkooda u saxiixo wixii anaa mas'uulka iyaga u saxiixay ma garat haye dee mushaarka iyaga qaato lacagta mushaarka iyaga la wareegay anagu waxaan hadda qaadana 5 bilood maanta ka soo wareegtay anagu $1 kamaanu qaadan markii maxkamaddu ma idin saxiixday idinka markaa inaad mushaar qaadataan mushaarka iyaga ka soo bado waxay dhaheen qoys ahaan baa mushaarku leenay isxulma leh baadir baa carruurteedana booska waa laga saaray maxkamaddu marka ugu horeysa mushaar iyo waxba toona ma iyan dhihin arrimaha qoyska iskale ma ogtahay qoyskina iyaga dhinaca saareen annaga dhinacana laga saaray waama geeska aan ku feeray dad ninkii tabareer baa la tuuro anna kaga dhigay ma garat haye waxaa la sameeyey inay dhahaanin caruur kale haysataa awooma kale haysataa annaga waxaan iska leenahay booskan annaga reexa Yuusuf aan u leenahay annaga iskala booska iyaga waxaan ku uri caruurta yarka mushaharkooda kaarka kusoo dhici jiray bal aniga too hal lay siiyo wax kale ayaan lay siin biilad ma lihiin maanta anaa haystee kaarka caruurta mushaharka ugu soo dhici jiray hal lay siiyo haye heer baa iskale baa lagu walaalkiisa soo baday kaarka reexa Yuusuf baa iskale waaya waxaan ku ku haystaa reexa Yuusuf maaha miyaa baan ku kama tirsan reerka ma ka baxawshasta dumar baa tay kaarka wax iskale reexa Yuusuf baa iskale kaarka inta maxaa lagu qaataa habar yar kaarka mushaarka ku soo dhaca aad de kaarar bay ku dhacdaa ma ogtahay waa marka odayg muxuu mushaar intee leeg baa ku soo dhaca $540 baa ku soo dhici jiray $540 iyaga qaata xitaa caruurta walaal odaygu dhalay 3 xitaa 100 may siinin kontar xitaa may siinin $1 lama siin $1 100 baa ka hadlaysaa haye subhanallah حتى واحد جدي كنت ندور ما أنت وضو دنت مولك كجدو عيالك كارك يبني كوريجي شركة دالتك وحلا سنة تصل عقد وشو ما كذا دب العقد وعليان وعلي هاي مركب ما تفهم عندي قصيو أنا فاهمي هاي مركب